qofku hadduu laba saddex dumar qabo markuu safarka ka yimaado dumarkiisa teebuu ku horeynayaa talabaad masaajidkiisu inaan igu gooriyay waxaan sheekhu sheegay inaan taa waan furay waan kala tagnay odaygaygu waa ciyaar suuq nin dhalinyaro baan ahay inan baan guursaday waan isbaharsanay lama qalgelin hadiyado badan bay iga qabtaa gaari bay iga qabtaa dahab bay iga qabtaa meher bay iga qabtaa xisaabta noo kala xisaabi maxaan leeyahay maxayadu leedahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى ما هذا نوسق نعطي معنا خير قبطة وصلت سوق ليسو قري سكمدة مع فرحة إنه ما أنتي نلتشوجو مفتي جمهورية الشيخ محمد الشيخ عمر درر الله سبحانه وتعالى حفظه ووقتي سيقالي قاي نوهري مساجد كيسي جمعيسي عمرناي شنطة طبقها إنك قدرتين وقوي يمد شيخ وين أمهد علينا ولن ندعين دونا إن شاء الله تعالى شيخ محمد سودو سؤالها بيوفر بدين صدق سؤال بنقصه شان ليني لبعتن رسونكا يت سؤال طبعا سؤال ذو عالية مركا إن شاء الله تعالى وين نقول ذكر دونا سؤالها هذه سؤالها برسون ونقضينا الشيخ نقرأ له هو يذن وقريسة وحيت هو أنا هاي وانا الناس الميرنا والناس نوجيا رمضان تيهور مسه من رمضان تنوي يسوق الشيء مع عمله سؤال شلبات وحنا هي إن اللي يرى أو لو يلبى تنشرة إن الصومان دنيا رمضان لما يستو ما نربو إن هذا قليو ما استعمال كريا كنينا ذن ديق حيثك جوجسة دي ما استعمال كريا سان صون قانو يجتبن سؤال صدحات maalmaha soo socda ballan baan la leeyahay dhakhtarka kamarad buu caloosha iga gelinayaa ma ii bannaan tahay inaan maalinta afturo ilaahay dartiina waan kuu jeclahay su-aasha afaraad waxaan ahay in dhalinyaro ah oon xaas lahayn aad bay shahwadeedu u badan tahay markaan fikirku iga farabato manida iga timaada soonkaygaasi miyuu faasiday maxaan samaynayaa su-aasha shanaad hooyaday baa isticmaasha hooyaday baa kaliya loo safeeyaa inay waxaan inagu qasabtaa inay waxay doonaysaa inay soonto dee dhigna uu soo gelayaa dhigna uu ka baxayaa nafaqana way gelaysaa nafaqana way baxaysaa ma bannaan tahay markaa inay hooya soonkeeda dhammaysato mise waa inay afurtaa maalmaha waxa weeyaan kaliyaha loo safaynayo su-aasha lixaad qofka muslimka ee dhiig laga shubayo ee qof kale loo shubayo soonkaasi muxuu yahay ka shubaya iyo ka loo shubaya labadaba soonkiisu muxuu yahay xaaladiisu su-aasha toddobaad waxaanu ka shaqaynaa halkan kambaniyadan ama meelahan furinlayaasha ah roodhidan dubnaa cadceeduna maxay ahayd jawiguna aad buu kulul yahay dab badanna waan ku dhex jirnaa maalintii oo dhan ma furi karnaa oo qaboobaha ma qallayn karnaa su-aasha sideedaad dhakhtar baan ahay dhakhtarka ayaan ka howlgalaa weyn camaliyado iyo obreeshanna ayaanu gallaa maalintii marmar camaliyadahaasi 8-9 saacadood bay socdaan man noo bannaan tahay inaanu afurno aniga iyo neerasta iyo shaqaalaha ku jira operationka su-aasha sagaalaad ma bannaan tahay qofka marka fidya lagu yeesho soonka kaash ma bixin karaa oo masaakiinta lacag kaash oo doolara ma siin karaa mise waxaa igu qasaba inaan cunto soo iibiyo ama cunto aan kariyo su-aasha tobnaad ee u dambaysa waxaa igu dhacay tasamum ghidaa'i ama food poison waxa loo yaqaano dabeetana calooshii baa layga maydhay soonka miyaan sii wadan karaa mise maalintaa soonkayga waa inaan ku soo celiyaa alxamdulilaah maadaama su-aaluhu badan yihiin dadkuna aada u soo daaleen waan soo koobkoobi ruuxa dumarkaa ee soom lagu leeyahay bisha ramadaan soom horoo lagu lahaa kana soo galay kanay soomi hadday karto kii horena bacda ramadaan bay qallay alxaamil walmurdic ta uur kale iyo ta jaqsiinaysa hadduu soomku ku dhib yahay way iska cuni sidii qofkii bukay ama musaafirku u cunaya oo kale laakiin maadaamay qallaha karayaan
waqtiga ay jaanis salaan ee awoodi karaan qallaha sanadka dhexdiisa ayay soo qallaynayaan raashin ma bixinayaan qowlka daliilka waafaqsan culimaduna u badan yihiin waa kaa ma isticmaali karaa kiniinka iga fogeynaya dhiigga caadada si aan u soomo maya inaad isticmaalin baa fiican ilaahay baaba fursad ku siiyo kuuri iska cun soona qallee waxyaabaan had iyo jeer la isticmaale ee ama dhiigga lagu kala fogeeyo ama dhalmaduna waxyaaba side effectiya kolle iyo salbiyaad bay leeyihin hormoonadii jidhka ayaa wax ka beddelaya darar iyo dhibaato kolley lagama waayo waxa kugu kalifayaa ma jiree xaaladaada caadigaa ku soco soomkana soo qallee laakiin haddii ay saa ku kala fogaysay cunto laftigeeda soomkeedu waa ansaxaya qofkii caloosha kamarada ku ridayay soomkiisii waa ka jabayaa mar haddii gudihiisa wax galeen wax kugu kalifaana ma jiro bukaan baa tahay maalintaa iska cun kamaradaada iska wado soona qallee waa haddii aad habeenkii fursadda weyday laakiin haddii aad heli karayso dhakhtarkii inuu habeenkii camaliyadda kuu sameeyo habeenkii samaysta maalintiina iska soon ilaahay daraaddiina waan ku jeclahay adigana waxaanu ku leenahay axabaka allah alladii axbabtanaa fiih ninkaa odayga ah yidhi waxbaan ka fikiraa soomkii ma jabayaa haddii biyihii taranku kaa yimaadaan haa waxaanan kugula talin lahayn inaad iska guursato allana ha ku fududeeyo haddii kelida la ii safeeyo soomkayga wax ma noqonaya mas'ala khilaafiya weeye culimada qaar waa burayaa bay leeyihin qaarna maya iskaba dhaafo habeenkii safayso haddii ay habeenkii kuu suuroobi weydana maalintaa lagu safaynayo iska cun oo soo qallee haddii qofkii qallihiina aanu karayninna raashin buu bixinayaa dhiigga ma laga qaadi karaa qofka sooman waa laga qaadi karaa saasay culimadu u badan yihin qaybsta baa jira culimada ka mida odhanaya wuu ku buraya haddii dhiigga laga shubo khilaafka si aada uga baxda isaga daayo habeenkii isticmaal oo habeenkii ayaa lagaa shubi doonaa dhiigga shaqooyin adag baanu haynaa furinka iyo wixii la mida ma afuri karnaa maya ma afurays laakiin waad soomaysa haddii laakiin dhibku kugu bato oo aada xejin weydo gaajo iyo haraad daraaddii sharcigu wuxuu kuu ogol yahay inaad iska cunto walaa tulquu biaydiikum ila tahluka laakiin kollayba soon marka horeba waxaana fiican inaad shaqada habeenkii u badiso mar walaynu su-aasha diinigaa ka jawaabnaba badiilkaan raacinayna marka waa inaad soontaa haddii shaqadii kugu adkaato gaajo iyo haraadaad tilaa waad u dhiman waad iska cuni shaqadana habeenkii u bedel insha allah hadday suuragalto dhakhaatiir baa noo camaliyadaanu samaynaa culculus ma cuni karnaa maya asalkeedaba cibaadadan faralka ah camalka iyo shaqada iyo waxyaabaha ikhtiyaariga loogama tago xuquuqda way kala horeeyaano xaqa ilaahay baa kowah marka xaqii kowga ahaa xagga damaha marin shaqadaada farsamayso cibaadadaynu u abuuranahay daraaddeedna xagga hore dhig oo ilaali oo kol haddii aad soomi karayso soom fidyadii qofkan sooman lagu lahaa ee raashinka ahayd lacag ma ku bixin karaa raashinkaa fiican ma bannaano ma odhan karna laakiin raashinkaa ku fiican sakaad fudriga iyo fidyadaba markaa raashin qoyan oo qof aad ku afurisan ood bixin kartaa mid qallalan oo maalintiiba qofkan kiilo aad ka bixisana waad samayn kartaa labadaba calooshaa la ii maydhayaa waanaan soomayaa wax isqabanaya maaha soomkuba meelaha uu ka buraa waa wixii caloosha gaadha ee meeshii uu ka burayaba haddii la isdhex taagay oo la safaynayo sooma jira maalintaa isku day inaad habeenkii u guurto lagu safeeyo haddii ay suuroobi kara weydana maalintaa lagu safaynayo dhibku uu ku qabsaday iyo xanuunka waa maalidaad bukaan tahay ilaahayna qofka bukaan markuu ruqsadda siinayey waxa uu waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhra wallahu aclam su-aasha 11aad ninkaasi telefoon buu igula soo hadlay horta wuxuu sheekh dir waxaad u sheegtaan in ilaahay dartii u jecelahay talabaad
masaajidkiisu inan igu gooriyey waxaan sheekha u sheegayaa inantaa waan furay waanu kala tagnay dadaaladi kala kaxeeyo waa nasiiba waa nooc qaarnabaad mid wanaagsan ugu duceeyay ninka waay waxay tahay su-aashaydu buu yidhi daaran tahay walaalkay operation buu gelayaa timaha loo beerayaa waa Turkiya dhiig badan baa ka imanaya dhowr cishana waa la dhayayaa maalmaha soonkana waan kari karayaa buu yidhi miyuu soomayaa mise mar baa dhiig ka imanaya oo la dhayayo waxa weeyaan dib uu dhiganayaa soonkiisa taasi waa kow su-aasha 12aad qofka sonkor qaba ee dhibaatada gaadhaysaana ay dhexdhexaad tahay buu yidhi dhibaato weynaan ahayn tu yarnaan ahayn xukunkeeda si aynu qadarinaynaa inuu soomo iyo inuu afuru qaleeyo su-aasha 3aad qof dumara waxay sheegtay waxay tiri 3-4 daqiiqadood intaanu maqrib eedaamin ayaan caadadii iga timid oon isku arkay maalintaa miyaan soonka wadi lahaa maxaa xala waan waday bay tiri laakiin maalintaa miyaa lagu leeyahay mise laguma lahaa su-aasha 14aad hooyo waxay leedahay uur baan lahaa uurkii ilaahay subxaana wa tacaala ma qadarin inuu dhammaystirmo waa iga soo dhacay waana soomanaa dhiig badanna waan leeyahay xukunkaygu muxuu yahay 15aad waxay tiri ma bannaan tahay marka dee kafaaro laygu leeyahay soon inaan timir keliya aan bixiyo mise waa inaan cunto kariyaa mise timir keliya inaan miisaamo dira waan kari karaa 16 waxaanahay qof dumar ah oon xijaabnayn ilaahay soonka maiga aqbalaya su-aasha 17aad waxay tiri waxaan isku mudaa irbadahan ansuuliinta la yidhaahday xanuunka sankorta ah soonkaygu ma buraya su-aasha 18aad waxay yidhahdeen waxaanu nahay dhalinyaro reer yaman ah waxaanu ka shaqaysanaa hargeysa sakaatulfidridayada haddaanu ururinno yaman ma u diri karnaa mise waxaa nagu qasaba marba haddaanu ku soonnay aanu ku afurnay hargeysa ama somalilan inaanu masaakiinta halkan aanu siino su-aasha 19aad wuxuu yidhi qofku ramadaan bilowgeeda hal niyo ma xidhan karaayo hal niyo ma la iman karaa ramadaan kowdeeda mise habeen walba waa inuu niyeystaa inuu berita hore soomayo su-aasha 20aad ramadaan walba waan soomaa laakiin salaada muxaafidum iyo salaada xoog ma ilaaliyo soonkaygaasi ma maqbuul baa 21 oo u dambaysa qaybtan waxaan ahay gaari baan kaxeeyaa gawaadhidan u kala goosho magaalooyinka iyo tuulooyinka ma ii bannaantahay inaan iska afuro qaboobaha iyo xilliyo dambena aan waxa weeyaan soonka la imaado su-aasha hore jawaabteeda qofka abubidaale timaha beeranaya allah u hirgeliya timahaasi culays reer magaalka ayay ku haysaa bidaartu haddii dhiig ka yimaado dhib ma leh oo dhiigu dee waa inagaa hore usoo sheegnayo dhiiggaa yara basiidkaa sida kaa la qaadayo shaybaadhka iyo dhib ma laha laakiin hadduu ku xanuunsanayo habeenkii ha u rogo hadduu wakti kale waayo dhakhtarkana maalintaa loo beerayo waa mariid iyo bukaan la soo qalleeyo iyo musaafir sheekh safar buu ku jiraa hadduu safar ku jirana dee ruksadii baabu haystaa oo uu iska cuni karaa sonkorta ama qofka macaanka leh isagaa isqiyaasaya dhakhtarkana uu la tashanaya hadduu isku wadi karo macaanka iyo soomka dee ha soomo haddii mashaqa ay soo gaadhaysana ha iska afuro fidyadiina ha bixiyo maadaama aanu qallihiina karayn oo sidiisaba waxaa la yidhaha lilcibaadati mashaqatun caadiya faidaa xasalat mashaqatun hayru caadiya falahu ruksa mashaqo caadiya cibaadadu leedaya culays markaa intaasun baa loo eegayaa mar hadduu kari karayo ha sooma haddii kalena fidyaha bixiyo gabadhaa tidhi dhiiggii caadadaa iga yimi iyada oo aan qoraxdu dhicinay sii dhowdahay jawaabtu waxa weeye maalintaa soomkaasi waa buray inaad iska cuntana weeye ma sii wadi karaysid waa wakti aan cibaado aqbali karin oo ilaahay kaa fududeeyey soona qallee ilmaha soo dhacay ee hooyadaa ka soo dhacay ruuxaa dumarkaa iyadoo sooman waxaa la eegayaa bilaha uu jiray haddii sawir bani aadam uu yeeshay ama ilaa 80 habeen uu ahaa cimrigiisu ilmaha caloosha ku jiray dhiiggaa ka yimi waa dhiiggii dhalmada dhowr iyo 80 mar hadduu gaadhay habeen maalinkaas isaga ahi
uu ka soo dhacay wixii ka dambeeyay inta dhiigu ka go'ayo waxa ay ku jirtaa dhiigii nifaaska marka way soo qalayn doontaa ayaamaha nifaasku ka socdana way iska cunay haddii ilmuhu aanu weli sawir bani aadam yeelanin soo dhacay 2 bilood iyo wixii ka yarna uu yahay taqriiban 8 habeen wixii ka yar dhiiggaasi waxaa loo tixgelinayaa ka imanaya inuu yahay dhiiggii dhawar furanka oo kale soomkii iyo salaadii iyo cibaadooyinkiina way wadaysaa timirta ma ku bixin karaa fidyada timirta raashinku bay ka mid sida bariiska iyo baastada iyo galleyda iyo waxa weeye fidyadana waa galaysaa zakaat fidrigana waa galaysaa nabiguna uu ku bixiyay sallallahu alayhi wasallam anigoo xijaabkaygu xun yahay soomku ma iga ansaxaya aw ka ansaxaya laakiin gaf baad ku jirtaa soomka ajrigiisa baa yaraanaya qof kasto caasi oo cibaadaysanaya mar haddii aan macsiyadaasi burinaynin cibaadada sidii gaalnimada kale ajrigi baa ka yaraanaya cibaadadii laakiin way ka ansaxaysaa sida qofkan taariikh salaadka iyo qofkii xijaabku ka xumaaday iyo qofkii balwada ku dhaxwaday waa soo dhan soomkii ma burayo soomku de waxyaabo buriyo gaar ah leeyahay mubdilaatu siyaam layda laakiin ajrigi baa ka yaraanaya qof ilaahay caabudaya caasina ah cibaadadii sarifan iyo lisan baa weheliya dawadan insulinta la yiraahdo qofkan uu qaadanayo ma jabinaysa bayleen culimadu oo sidii de glucose iyo fitamiinadii cuslaa iyo lamid baa sidaa daraadeed hadduu qaato oo ka qaato jirka iyo muruqyada dib ma laho ma jabinayso naqlu zakaa hal yajuuz zakadii intoo laga qaado meeshii laga bixinayay meel kale ma la geyn karaa lil xaajati wa lil maslahati nacam haddii baahi jirto ama maslaxad weyn ay ku jirto halkaa loo rarayo waa loo rari karaa sida dadka abaaru haya ama meel masaakiintu ay ku gaajaysan yihiin ama qaraabadaadu jirto waa la geyn karaa asalku se waxa weeye halka aad joogtay lagu bixiyo taana baahi daraadeed u halkaa loogu gudbin karaa waxaase ka sii fiican inuu qofku halkan uu joogana wax ku bixiyo halkaa kale baahidu ay ka jirtana bargeeyo bisha ramadaan niyada mar qura ma laga wada dhigi karaa maya siduu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidka xasanka ku sugan habeen walba waa inay niyadu dhacdaa habeen walba waa inuu laga bilaabo afurka ilaa intuu waagu barayo waqti ka mida niyooda barita inuu soomayo soomka sunnaha iyo ka faralka ah way ku kala duwan yihiin halkaa niyada ee soomka faralka ah waxa weeye habeen walba in la niyoodo habeen maalintiina la niyoon karin habeenkii loo qadimo niyada gaadiidkan wadaayo safaar baan ahay qof safarkiisu uu badan yahay maxaan ka yeelayaa soomka qofku haddii shaqadiisuba ay safartay midal dooni buu wadaa markab buu wadaa gaari buu wadaa duuliya weeye oo safarkiisu joogto yahay ruqsadii uu haystaa uu ku afuri lahaa bisha ramadaan uu ku gaabin lahaa salaadii laakiin waa inuu soo qaleeyo waqtigu jaanis salaam hadduu isleeyahay markaa dee qallihiibaa cidhiidhi kugu noqonaya ama kugu badanayaba wuu iskaga soomi karaa safarka dhexdiisa wallahu aclam su-aasha ugu horeysa waxay leedahay nin dhallinyaraa baan ahay inan baan guursaday waanu isbehersanay lamaana qalgelin waanu iskhilaafnay waanu islaynay waan furay hadiyado badan bay iga qabtaa gaari bay iga qabtaa dahab bay iga qabtaa meher bay iga qabtaa xisaabta noo kale xisaabi maxaan leeyahay maxay iyadu leedahay taas su-aasha labaad sakadu may ku waajibtay xoolahaan qof amaahiyey xoolo fara badan oo qof amaahiyey oonu weli xoolaha weli ii soo celin deynkaa iga maqan sakadu may ku waajibtay gacantaydana may soo gelin lacagtaasi may soo gelin su-aasha saddexaad maxay tahay xukunku inuu qofku ka shaqeeyo kambaniyo waxaa jira online ah oo ribo si qarsoodiya ribo u isticmaala ma ka shaqayn karaa su-aasha afaraad geeman baan ciyaaraa internetkan ka ciyaaraa geeman lacag baan ka helaa oo waxba hawshaan ku jira geemkaan ciyaarayo haddaan badiyo lacag doolara baa la ii soo dira accountkaygii baa la hayaa lacagtaa maya xalaalba su-aasha shanaad qofku hadduu saddex dumara qabo markuu safarka ka yimaado dumarkiisa teebuu ka horeynayaa
su-aasha lixaad odaygaygu waa ciyaara suuq ma tukado ma soomo inaan iska furaan doonayaaye sheekh dirano maxaad iigu nasteexaynaysaa su-aasha toddobaad hagbad baan ku jiraa dhaqaale aad u fara badan bay hagbaddaasi markay soo wareegto ay tahay xoolaha hagbadda iga soo baxay saka ma ku waajibtay su-aasha siddeedaad hooyadii keliyaha fadhiya ma bannaan tahay inaan keli ugu tabarruco ama aan u iibiyo su-aasha sagaalaad xafladaha iminka waxaa soo baxay in xaflad la sameeyo xabad keegoo weynna la sameeyo aayad qur-aan ah ama beej qur-aanka ka mid ah ayaa lagu dul daabacayaa keegii xafladda loogu talagelay aayado munaasabadda ka turjumaya oo laga barakaysanayo darteed ma bannaan tahay in qur-aanka lagu daabaco keega oo qofba ayadu cuno su-aasha tobnaad ee ugu dambaysa waxaan marsaday waxaanay dumarku ciddiyaha mariyaan waan iska masaxay markaa munaasabaddii ka soo noqday qayb baa igu hadhadhay ma arkayn fajir baan tukaday salaadaasi masax baa mise waan ku celiyaa jazaaka allah khayr su-aasha hore ninku markuu furo ruux dumar ah ee uu doonayo wixii ay ka qaaday ka xisaabtamayo waxa uu ka qaadan karaa inta aanu furin baabka khuluca la khuluc iblaayoy furiinkii baad codsatay marka si aan dalqadda kuu siiyo waxa ay sii ama meherkayga saamax waa suuragal korsi adigoon waxba weydiisanin kol haddii dalqaddii kaa dhacday fursaddaasi way ku seegtay hadiyaddaana way leedahay meherkana dee cawradeedaad ku xalaashato wuu sugmay markaa mid kale allah ha ku sakhiro haddii uu la guri galay lama gelin u mehersadoon haddii uu la guri galay meherkii oo dhan bay leedahay haddii markaa aanu la guri gelinna sida qur-aankuga caddeeyey fa nisfu maa faradtu meherka barhkii ayay yeelanaysa hadduu wada siiyeyna waa u soo celinaysa oo haddaan galma jirin qalad yar baa jiro marka aad tidhaahdeen markaad tidhaahdo had iyo jeer galma ma jirtaa waxay ku odhanayaan maanu guri gelin ayay ku odhanayaan laakiin way jabhadeeyeen marka waxba ayay guri gelin be mar hadday galma isku arkeen meher ku wada sugmay daynta maqan ee adiga kaa maqan iyo ta kugu maqan culimmadu aad bay uga hadleen khilaaf baa ka jira waxay culimmadu u badan yihiin ta adiga kaa maqanna inaad sakaynayso ta kugu maqane lagugu leeyahayna inaad iska jarayso markaad xisaabtamayso oo qofkii lahaa sakaynaya jumhuurtu waa sidaa daynka laakiin aad sakaynaysa kaa maqani waa ka kuu soo noqon karaya ka aad ku leedahay qof diidanba oo maxkamad u baahan hadda kuguma waajibaya waa markaad hesho ka aad ku leedahay qof caydhahoo aan waxba hayna hadda laguguma lahay waa markuu soo celiyo sharkad ribo ka shaqaysa ma ka shaqayn karaa maya waa xaraam xaaraanta in la qaato in laga shaqeeyo in laga baac mushtareeyo in la bixiyo intuba waa xaraam alxaraamu xaraamun cala aljamiic netka ama internetkan ka ciyaara games lagu kala qaadanayo lacag jawaabtu waa qamaar ciyaar kasta iyo tartan kastoo lacag lagu kala qaato labada tartamaya lacag ku kala qaataan waa qamaarka ilaahay uu ku diiday fii suurati almaa-ida markuu ninku soo degu jannaalo yahay dabadda ka yimaado xaasaskiisii sii joogay tee buu ku bilaabayaa tii u lahayd buu ku bilaabayaa xisaabi xil ma leh mid buu ka dhoofay deeta kaluu ku soo degaya waxaa la yidhaha gashi ma duugoobo gashiga iyo dayntu ma duugoobo muddo dheer ba ha ahaato hadduu mid ku dambeeyo iyadii intuu iska xiiseeyo ku soo degi maayee tii u lahayd buu ku bilaabaya ilaa wax xisaabtane waxaa dumarka ahay waxay leedahay ninkii adigu ereyga adag bay ku tilmaantay faasiq iyo wax ba iska furi karaa qiimayntaasi maxkamadda u taallaa waaba laga yaabaa inuu halkaad adigu ka tiri waa ciyaalo suuq isna yidhaahdo waa ciyaalo suuqad
kadibna qaadigaa eegaya balka waxaa la sheegaya ku sifaysana furiinka mutaysay marka qiimeyn bay u taallaa qaadiga hortaga hagbadiisa kama ka waajibaysa ama ma ku waajibaysa waxaad sheegtay inaad lacag hagbadeed qaadatay mar haddii lacagtaasi ay ku soo gashay 12 biloodna ay u soo wareegeen heerkii lagu sakeeyayna ay gaadhay saka ka bixi sakada way ku sugantay laakiin haddii aan sanad u soo wareegin lacagta iyada ah intay milkigaaga ku jirtay ama sakaba aanay gaadhin saka laguma leh sadaqa umaad ka bixin hagbadda qofka ku jira ee tirsanaya waa dayn ka maqan lacagta hagbadda kaa gashay marka goordhow marka aad qaadato hagbadda markaad gashay laga bilaabo ilaa markaad qaadatay ayuunbaad eegaysaa daynta kaa maqanna waa tii aynu soo sheegnay kol haddaad qaadan karayso in saka lagu leeyahay talan hagbaddu waa sanad imikaad bilowday tirso maalintaad qaadato ayuunbaad eegaysaa lacagtaasi inay saka gaadhiyeen kale waad ka bixinaysaa hadday gaadhay haddii kalena maya kelima ku tabaruci karaa ama ma iibsan karaa culimadu khilaaf baa ka jiro ahaa iyo mayaba u yidhaaheen doodana waxaa keenaya qofku xubnaha jirhkiisa ma isagaa le mise ammaanay ku yihiin sida saxda ahayna waxa weeye inay ammaano ku yihiin xubnaha jirhkeenna ma lihin ee ammaanay nagu yihiin sidaa daraaddeed ikhtiyaaru ma lihin inaad iska goyso iyo waxaad doonta inaad ku samayso qofkuna markuu wax iibinayo ama wax bixinayo dee waxan waa inuu leeyahay dee maba lihida ammaanay kugu yihin markaa mad kuma tabaruci kartid bay u badan yihin inta aada weliba nooshahay markaad dhimatona maya markaad dhimato kuma tabaruci kartid markaad dhinto saha la sameeya laakiin ta laga hadlaya waa markaad nooshahay weliba xubinka laga hadlaya doodu ay ku jirtaa waa ka lamaanaha ah sida keliyahoo kale ka midka keliya dee maba bixin kartidba oo uma odhanaysid aabbaa xaq weyn igu leh ama hooyo wadnahaan u bixinaya dee waad isdilaysa taa lama ogola almuhim markaynu ku soo dhowaano iibku ma bannaana oo inaad xubinkii iibsataa waa xaraam laakiin tabaruc ah haddii qofkii uu ka maarmayo qof kalena u dhimanayo ugu tabaruci karaa bay u badan yihiin culimo badan oo casriga ah qur-aanka keega lagu dul qorayo waxay u muuqataa in lagu ciyaarayo ilaahayna wuxu uhi waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub qur-aanka ilaahay shacaa'irtu ka mid yahay diinta calaamadaha waaweynay leedahay qofka weyneeya taasi waxay sheegaysaa alla ka cabsi qalbigiisa ku jira markaa gidaarka iyo gawaadhida iyo waxyaabaha lagu xafladaynayo iyo qur-aanka in laga daayo wey qur-aanka waxaa loogu talagalay qiyamka dadkana inuu saxo qalbigana culo oo uu safeeyo laakiin madadaalo iyo dhaldhalaal iyo waxaa qur-aanka in lagula warwareego ma aha xidiyahan caseeye iyagoo sii casaysan baa salaadii tukaday ma iga ansaxday hadday biyuhu gaadheen haa haddaanay biyuhu gaadhinna markaad weysaysanaysay kaamay ansaxin markaa balda waa lagula eegiyo dee waxaan inuu rinjigoo kale yahay ila imika rinjiga marka la mariyo xidiyaha ma gaadhayaan biyihii sidaa daraaddeed dee weysadii ma ansixin weysadu waxa weeye basharada ama jidhka oo dhan ina uu wada gaadhaabay ahayd ee biyuhu wada gaadhaan oo qusli macnihiisu waa caynka haddii laakiin aanay biyihii jidhkii oo dhan wada gaadhin dee qayb ka midabaa bannaan markaa weysadii ma ansixin wallahu aclam doctor maxamed soo weydiiyey laba ka mid ah shaqaala gurigayga shaqeeya sida hablahan dee cuntada kariya waxay nadaafadii waxay la mid ah sakaatulfidriga maanaa ka bixinaya mise iyagaas ka bixinaya waa kow haddaan duhur joogo oon duhur tukaday oon safrayo salaada casar aan sii tukanaya aan duhur ku xigsiinaya ma labaan tukanaya mise afar shaqaalaha kuu shaqaynaya kol haddii aanay ahayn dadkii aada biilkoodu kugu waajibay laguguma laha sakadooda sakaatulfidrigooda dadka dabcan biilkoodu kugu waajibayna waa asalkaaga iyo farcaaga iyo ooridaada xaaskaaga caruurtaada waalidkaaga mar haddaanay kuwa ahayn shaqaale caadi ahoo mushaqaayad qaadanaya yihiin sakaatulfidrigooda laguma leh salaada aan gaabinayo markaan magaalada ka anbabaxayo goormaan bilaabayaa markaan safrayo magaalada ka safrayo
قورما بلاوية عند الخروج من عمران المدينة marka aad ka baxda magaalada inta dhismuhu isku joogo ee koonaheeda aad u baxdo ayaad bilaabi kartaa salaada gaabinteeda laakiin inta aad ku jirto magaalada inta camirana wax ka dhisan yihiin ma gaabinaysid oo gaabintii ma bilaabaysid controlka oo kale marka aad dhaafto ayaad bilaabi karaysaa gaabintii salaada iyo jamcinteedii iyo sugeyntii sheekh jazakallahu khayr dad badan baa duca soo dalbaday hooyo sahra Soomaali la yiraahdo aan seexanayn baa hurdada ku adag tahay dad badan oo xanuunsanaya dad operation ku jira dad operation sugaya inay badan oo dhintay waalidiina barida insha Allah sheekh duca aam iyo khaasna wada ducayso insha Allah jazakallahu khayr dambigeena Allah dhaaf ki waalidkeena Allah dhaaf dadka cabanaya cudurka Allah ka dulqaado caafimaad Allah ugu bedelo caafimaad caajil oo degdeg Ilaahay ha siiyo dadka duruufaysan duruufta Allah ka dulqaado dadka muraayada la muraadkooda oo khayr Ilaahay ha siiyo dadka abaaraysan iyo dhammaan ummadda islaamka waa madarkiisa Ilaahay ha siiyo walaadahana Allah inaga qaboojiyo cadawgana Allah inooga heeliyo cisiyo sharafna Allah ina siiyo khilaafkana Allah inaga dhex saaro qulubteennana Allah iswaafajiyo cibaadooyinkeenu gudanayna ee kala duwanna Allah inaga aqbalo Ilaahay inaga aqbalo إلهي وحين كبر إن الحريص لا إله إنه نوابه ليلة القدر كان الله ينوافجي وما يالك وكحرين الناره سنا الله ينقدر والد كاني ونكسنا دنتين الله ونحريص أنت النورنا إلهي حفظه حل وحين هين أردنا الله ينو بركاي وحين كبر قينية بلايوين كوريجينا الله ينو يداري تد ونكسنا ديني ما قوة الصعداء شرف لنا إلهي نقدر ummadda islaamku meel kastay joogaan dhibka Allah ka dulqaado nasrigana Ilaahay ha siiyo nasrigiisana Ilaahay ha siiyo wa aakhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika